soo noqday daawashada saaxiibayaal bartaada daawanayna waa isla Cabdildeeq Official magacaygu Cabdilla Xuseen waxaan ma idinheynaa muuqaal cajiib ah aad ka ogtahay arooska Abwaan Geesi iyo Xamda Bilan xilli musu dhacaya faafahin dhameystiran ayaan idinka haynaa waqtiga uu dhacayo iyo halka ay goobtu tahay waqtiga la calaamadiyay iyo dalka uu ka dhici doono gaar ahaan isla meesha uu ka dhici doono ayaan warbixin dhameystiran idinka haynaa saaxiibayaal balse marka hore saaxiibkayga amba walaashayda qiimaha badanay waxaan ka codsanayaa inaad videoga like saarto sina share gareyso soo kala barteena YouTube-ka Cabdildeeq subscribe nagu sameeyso gabalkan kana furato si aysan ku dhaafin muuqaalada qurux badan ee soo galino barteena YouTube iyo soo kale barteena page-ka Cabdilla Xuseen wad ku maasan tahay daawashada muuqaalka dalka awal waxaan soo wadnay waxa ka hadlaynay jacaylkooda iyo waqtiga ay isjeclaadaan iyo xogta xiriirkooda marayo iyo gaar ahaan halka ay ku isku yihiin balse maanta waxaan si dhab ah uga hadli doonaa arooska Xamda Bilan iyo Abwaan Geesi xilli ma ayuu dhici doonaa halkuu ka dhacayaa ayaase shaaciyo warkiisa ma isla Abwaan Geesi mise Xamda Bilan mise saaxiibadooda kale waxaad ku ogaan doontaa muuqaalkan aan soo gelinay isla muuqaalkan dhameystiro waxaad ogaan doontaa xaqiiqada dhabta ah wax kasta oo dadku ay soo hadaliyaan oo afkooda ka saadaaliyaan waad ogaan kartaa inuu xaqiiq yahay sababtoo ah hadii la yiraahdo hebel way kala tagayaan waxaad arkaysaa labadii oo si dhaqso u kala tagay hadii aad soo kala aragto iyagoo lagu leeyahay way iskuursanayaan waa wax markiiba way dhacaysaa walkaas waxaan la soo weerinay toddobaad u dambeeyay in Xamda Bilan iyo Abwaan Geesi ay muddadan in badan oo xiriir jacayl ka dhaxeeyay bisanaha waqtigan noqday waqtiga iskuulsan lahayd xaq ku dambeeyay Mursal Muuse iyo Hodan Cabdiraxmaan waxay ka yiraahdeen waxaan iyadna inuu hayna isla muuqaalkan warbixin soo dhameystiran Abwaan Geesi waxba ka dhaxeeya waxa laba qof oo xiriir jacayl oo ka dhaxeeyo macnaha waxa weeyaan meherkooduna macnaha uu ka dhici doono isla dalkaas Turki yaray idagayso idagayso ari waxa leeyahay hadda la ku ran yahay walaal iyo jacayl iyo hadda la ku ran yahay magal inta way tahay marka hadda la ku ran yahay aad baan soo dhaweynayaa laba miraha caashaqa wada mu'udsadiyo mahuraanina nahay مخبران إن هاي مقاشي أدون كوبتي واسل إريدة هاي كل واقع Xamda Bilan markii ay ugu dambeeyeen ku guuleystay jacaylkeedii qarniga badan ama muddo badan ay ku soo taamaysay qalbi qaasay isla Abwaan Geesi weeyaan ka hadlaynay Abwaankan ayaa isugu muddo dhow guuray dalka Turkiga halkaas oo ka isla magaalada caasimadda ee Muqdisho oo muddo ugu dambeeyay ku sugnaa markii uu ka tagay isla gobolkiisa gaalkacyo galmudug ee uu muddada fankiisa aad uga soo shacbay ugu dambeyntii Abwaanku waxa uu guuray dalka Turkiga gaar ahaan magaalada Istanbul halkaas oo حالة تهريب إنه قصي بحدوني إلى ود مدى يوروب عكاسيو كلولشي سأمبا نفعتي ساقوسي لسنتونو برسي قدامين وحقاو حجوج كودا مجعيل كودا عيركس كوسي شريري مركي Xamda Bilan يونيكي دي كلا تغين كدبنا هاي Abwaan Geesi ay dib u jilcay tiri halkii ay ku dhawiil karay oo isfahmi kartaan ama noloshiina oo qeysha kartaan wuxuu noqday Abwaan Geesi wuxuu arooskooda ka dhacaya isla dalka Turkiga waxaana shaaciyay saaxiibkiisii ay ka soo shaqeyneen isbadhaanto oo had garanaysaan oo wareed codkiisa quruxda badan ku shaaciyay inuu dhacayo aroosku ka dhacayo isla magaalada Istanbul ee dalka Turkiga soo kale waxaan nahay cadeymo badan oo kala muujinaya in saaxiibadiisa kale oo si fiican uga hadlaya halka arooskooda ka dhacayo isla goobta uu ka dhacayo iyo waqtiga uu dhici doono إن صاحب يال واحد مرة الواد يمرس حد بس يحش مدله يدري قاعد سنة إن مقال كليك سارتان سنة شركة ريسان سو كل برت يوتيوب كان Cabdildeeq هذا سبسكرايب نوقف سميسان ونتكون مع سنتي صاحب داوشة المقال كان يم مقال ذكر سوق لنا برتنا يوتيوب يسوق له برتنا فيسبوك يا Cabdilla Xuseen وعيبه Cabdildeeq إسلا Cabdilla Xuseen هذا بقى ما هي حجرك جعل Abwaan Geesi iyo Xamda Bilan isla xilli ayuu soo bilowday balse xilli ma ayay noqotay waqtiga ay ugu dambeyn ku guuleysanayaan Abwaan Geesi iyo Xamda Bilan sida wada ognahay wax isbartay 2019 dhamaadkiisii waxa ayna muddo badan 2020 waxa soo weydinayaan rubaayadaha oo waqtiyada qaar ay kooxda ku mataliyeen an ku guursaday wiil odayga hore iska fur oo iyaduna ay ku gacaysay waqti badan waxa laba qof oo isfahmay amba si dhow iskula shaqeynay Xamda Bilan oo dadku inta badan isweydiinayeen warin ma leedahay mise male balse ku soo بدك ترتاح عيالكيدا بس تيك توك aad u isticmaasho ku xunta ila dhowr qof taas oo aad ugu soo بدك ciyaalkeeda amba ilmaheeda hal wiil oo qura ayaa u jooga Xamda Bilan soo ognay kaasoo ay aad u kooliso balse ugu dambeyntii waxay
nolosha la midaysanaysaa abwaangeesi way rabto inay la qaybsato nolosha abwaangeesi oo ah wiil walaahi run ahaantii aad u firfircoon amba dadka Soomaaliyeed u yaqaanaan nin firfircoon oo aadna nolosha ula fahmi kara isla xamdi bilan oo ah mid guurkeedii hore ku guuldareystay amba dib u soo qasaatay waxaa saaxiibayaal dhegeysiin doonaa amba dawsiin doonaa muuqaaladii ugu dambeeyay anka iyo waliba thumbnailka aad ku soo aragtay maxaa ka jira xiriirka jacayl ee xamdi bilan iyo waliba abwaangeesi xamxamtii asbuucyadii la soo dhaafay u dhaxaysay mursal muuse iyo waliba xamdi bilan haatan waa ay soo idlaatay waxaan idin hayaa muuqaalo iyo waliba cadeymo cadeynaya in mar dhow arrinkaasi uu noqon doono hadee ay ka dhici doonto reerkii lagu nastay lagu nagaado qaasa kugu magacilnaa xabiibi ما شاء الله حبيبي حبيبي هذا ما استحي معنا بقول كيف بقول شرف يا كرام هذا بس المقالة كوسو دواتين إن ديما هذا واحد ديما أنا بواحد ديما هذا وبهانتين مله توتو عديما هذا مسك ترن إيروس كودا أيو جعل كودا وان سنة أنت قفي كاشنا وصل دواتين إيمن كنا واحد سيد إسلا كارلي كافي أو صاحب كيس أوانجيزي أما اسم دان توكسو ولا شقيين أنت بدن أهنا قفك كلي أي نلاش سفي عن هاي اسكولا قبسدين أبا صاحبتين مو في يعني كسر حمرتي أوانجيز إيو كافي أو هالك ناس كسر مردقية si fiican uga sheekeynaya waxyaalaha uu ka ogaa jacaylka Xamdi Bilan iyo isla abwaangeesiga hadda nolosha ku dambeyntiina de walaalay ahaayeen walaalnimadii iska bedeshay oo qaab kale u bedeshay marka abwaangeesi iyo Xamdi Bilan horta ay waxba ii sheegay maad koor ka shakiyay laakiin inay isku dakhran yihiin sababtoo waxa laga yaabaa Xamdi Bilan marka qaar iyada kula hadlaysa adiga inay abwaanka eegaysa adiga halka bay taagantay ku leedahay ma kaafiyo walaalo ان ساس ما هون دول الكافي وكورتاغي maxaa xagaad oo abwaankuna marka qaar isoo adig kula hadlaya waxaan bilan fiirinayo marka aad mar hore yahay laakiin markii aan weydiiyay markaas way yara dhaceen gasfiisiye laakiin imka anigu waan ogahay arintaasna xaqiiqada baan u hayaa idinka indhihiina ku arki doona qiimaha badan oo ku maasantahay daawashada muuqaalka waxaan ka codsanayaa subscribe share iyo like waan ku maasantiin muuqaalada soo gudbino daawatan isna taageertaan isna dhirigelisan ba saaxiib yar waxaad leenahay نقرب استاجا وارد كم هسنتين داوش المقالة ذا